xubnaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug oo ku jira diyaar garowgii ugu dambeeyay ee kamira dhalinta gogasha nabadeed ee laga fidiyay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta waxaa booqasho ugu yimid wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamuud Sabriye iyo madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Kulanka ayaa waxaa looga hadlayay soo dhaweynta ergada amniga magaalada iyo furitaanka shirweynaha. Gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo oo kulanka ka warbixiyay ayaa sheegay in Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan uu cadeeyay in guud ahaan bulshada reer Dhuusamareeb ay u diyaar garowday soo dhaweynta lana diyaariyay deegaankii ergada amniga magaalada aad loo adkeeyay. Dr. Baadiyo ayaa shaaciyay in beelaha badankood ay soo gudbiyeen ergada ka qayb galaysa shirka waxa uuna beelaha dhiman ka codsaday inay si degdeg u soo dedejiyaan liiska ergada shirka kaga qayb galaysa isagoo shirku furmayo 17 bishan. Gudoomiye Baadiyo ayaa Sheekh Shaakir dhammaan reer Dhuusamareeb waxa uu kaga mahad celiyay sida ay isaga xil saareen qorshaha iyo diyaar garowga shirka waxa uu guud ahaan reer Galmudug ugu hambalyeeyay heerka wanaagsan ee la soo gaarsiiyay dadaalada loogu jiro dib u heshiisiinta bulshada. ayada oo lagu jiro maalmihii ugu dambeeyay qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta Galmudug lagu qabanayo caasimadda Dhuusamareeb ayaa maanta waxaa booqasho noogu yimid rasmi ah madaxa xukuumadda Sheekh Shaakir iyo wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye ayaa noogu yimid maanta waxay ku soo booqdeen guddiga qabanqaabada Galmudug waxay ku soo booqdeen xaruntooda waxaan kala warqaadanay wararkii ugu dambeeyay qabanqaabada meesha ay marayso. Sheekh Shaakir wuxuu noo sheegay in magaalada Dhuusamareeb oo dhan kulligeed u diyaar garowday inay soo dhaweyso wafuudda waxaa soo dhamaystirmaya oo mataqaanaa noo soo wada gudbiyay liisaski waxaan u sheegaynaa beelaha ay ku hareen liisasku oo ilaa maanta aan filayna inay soo dedejiyaan ayaan u soo jeedinaynaa. waxaan u sheegaynaa meeshaan in wax kastaba lagu diyaar gareeyay oo lagu diyaar gareeyay goobihii la degi lahaa waqtiga la soo qaadi lahaa in la joogo shirku wuxuu dhacayaa waqtigiisii oo wuxuu ahaa loogu talagalay 17 bisha ayuu furmayaa. waxaan dhahaynaa dhammaan reer Galmudug waxaan ugu hambalyeynaa sida ay u diyaar garoobeen iyo sida ay u taageersan yihiin shirka iyo waxaan mahad gaaran u jeedinaynaa madaxa xukuumadda Sheekh Shaakir iyo mataqaanaa maamulkii Galmudug muxuu ahaa ee joogay magaalada amnigeeda muxuu ahaa muddo dheer ka shaqeynayay iyo madaxa iyo muxuu ahaa ciidamada qalabka sida isku dhafka ah ee laga shaqeeyay amniga ilaalinaya aad iyo aad ugu mahad celinaynaa sida ay ugu diyaar garoobeen dadka inay soo dhaweeyaan dhaqanka deegaanka Galmudug muxuu ahaa Dhuusamareeb ayakana aad iyo aad ugu mahad celinaynaa sida ay ugu diyaar garoobeen iyo shacbiga iyo dhalinyarada iyo dumarka muxuu ahaa magaalada Dhuusamareeb oo dhamaantood sugaya inay si weyn u soo dhaweeyaan ergooyinka ka imaanaya beelaha kala duwan ee Galmudug kuwa ka imaanaya kuwa diyaaradaha ku imaanaya kuwa dhulka ku imaanayaba waa idin mahad celinaynaa dhammaantiin soo dhawaada.